madaxweynaha hadda xilligiisu dhamaaday xilku ka dhamaaday ee galmudug maxamed cabdi kaariye qoorqoor oo ka hadlayay shalay maraan dhageysanayay balanbal mas'uuliyaddii loo idmaday uu dhinac maray wuxuu ka hadlay hub wuxuu yiri hubkaas inaad qaadataan ayaa wanaagsaneed hubkaas waa qayr mas'uulnimo waxaan leeyahay 5 sano ninkii galmudug 5 sano xukumayay aqoontiisii aqligiisii wakaas markaas qofkii mas'uuliyadda loo idmaday hadda xilku waa ka dhacay wuxuu leeyahay ku talinayaa waad ku mahadsantihiin inaad hub ka dhacdaan waa qayr mas'uulnimo waa doqonnimo waa maaragtay fulinimo weeye qof mas'uuliyad maalin qabtay inuu cod ka bixiyo ku hadlaa aad iyo aad bay u leedahay waa nasiib darro u soo hoyatay galmudug ninkii 5 sano xukumayay inuu nuuca u hadlo ninka iyo wax la mid ah codkiina hasiinina musharaxiinta galmudug way badan yihiin waxaan leeyahay adeer ninkaasu nin qaadi kara galmudug ma ahan qodobka markaan halka uga gudbo shalay nin galmudug ah oo deegaanka galmudug u dhashay oo fulroona oo saacad walba ciidamada jooga xaradheere iyo furumaha dagaalka ku jira labadii sano nana soo wacayay furumahana kormeerayay ayaan shalay soo dhaweyn xaq buu leeyahay qof kasto galmudug inaan soo dhaweyn annaguna maadaama aan ciidamadii nahay galmudug waxa xaq nagu ah qof kasta ee musharaxa inaan soo dhaweyn annagu qof aan u xirannahay iyo qof guri loogu xiran yahay ma jiro dalku waa tartan xilkina waa dhammaad ninkii madaxweynaha 5 sano loo idmaday mas'uulka ah waxaad ogaanaysaan inuusan ninkaas halkaana uu ku dhacay tartankana uusan gali karin mas'uul darrada noocaas ku dhacdana waxa weeye waa wixii uu ku xukumayay 4 sano iyo sanadkii maaragtay meesha iska joogay oo hadda xil haynay waxaan leeyahay galmudug war galmudug gacmaha isqabsada oo qofkiina wax garta iyo qofkiina wax idin qabanaya horta marka hore galmudug ay kala fahma war qofka in ka shaqaysanaya iyo qofka idin shaqaynaya horta galmudug ay kala barto waxa aan sheegayaa intuu soo taabsi weeye shalay ayuu idacada ka hadlay balanbalu ka hadlay wuxuu ku hadlayay codka hadda aan sheegayo waa qayr mas'uulnimo mid ugu xibad weey saasoo too wuxuu 4 sanana 5 sanana hor taagnaa haddana uu hanqal taagayo inuu galmudug soo xukumo war ma astaahila ilaahay baan ku dhaarshay war ma astaahila waxaan leeyahay marka walaalayaal galmudug ay gacanta isqabsada waliba beelaha degan xuduudkaas waxaan leeyahay ka foojignaana hana ku kadsoominina war iska fiiriya dadka aad dooranaysaan lacag baad ku dooranaysaan dadka awal baa ninkaan aqoon uu leeyahay iyo kartiyo uu leeyahay kuma imaani farmaajo geystay meesha hadda waxaan is leeyahay maxalligan farmaajo ma joogo dawladda Soomaaliya baa qudariya marka dawladda Soomaaliya baa qudariya 2 sano iyo 3 biloodan halgankan ku jira anigu aan hadda waraysi ku bixinay furunka ma aanan bixin waxaan ka soo bilaabay meesha la yiraahdo laamiga cadag kibra ka soo bilaabay xaradheeran jooga oo hadda jooga sanad iyo bar naf baan ku weynay maal baan ku weynay hanti baan ku weynay ma rabno in maaragtay si kale nolo isticmaalo oo dad annaga inagu halkacsaan marno dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa galmudug mandatekeedii wuu ka dhamaaday doorasho la aadaya wa ana doorashada aqbashaan oo doorashada soo dadajisaan madaxweynaha Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa ra'iisul wasaarihiisa iyo baarlamaankiisa adeeryaalow galmudug mandatekii waa dhamaaday galmudug doorashaha loo ogolaado haddaan qas laga rabin mar labadan qoorqoor ku celinaya wuxuu yiri ninba wuxuu yiri faataxad ayaa sanadkii wax ku yeeshay qoorqoor sanadkii dhawaa
cadaadada waxa weeye gaalkacyo kale goyntooda kursiga ku heshay وعقنها أنك ها والله فرماجة كنت صدي وحوي إذا ماذا وحوي وعقنها سبحة ثمانية سنة عقنها سنة كان كهل ميسد كرسي ها شيء عدادة واكو برتين وحوي إن هذا المارتي قبيلنا وحقوق قمني ده هان كلنا هذا وحقوق قمني سنة كده وهداد إسبارة كه شيء يانا الوضع دير دكتو أدر سنة كان وضع دير مدة كرتين لقانا أقبل مايو وقالوا دورشة وقالوا انت أسان أذيقنا مرلبات كولها هاي دولة الصوماليين وحن رجعين يعود سيجي يقبشوا دورشة حلقة وقالوا هذا قلمدو حبان فينا لقرب من يفوضوا